maxaad la murugoonaysaa? Ma waxaad u haysataa inaadan qurux badnayn? Qof baa aad u doonaya inuu sidaada u qurux badnaado. Kuwo badan baa lixaadkoodii waayay haddana qanacsan. Ma waxaad rabtaa lacag badan? 30% dadka adduunka waa sabool. Qaar badan waxay ku nool yihiin wax ka yar nolol maalmeedkoodii caadiga ah. Ma waxaad doonaysaa oo aad weyday saaxiib? Xusuusnow, dadka qaar baan haysanin waalid. Ma dhadhanka cuntada ayaad nacday? Ogow, caruur ayaa gaajo u dhimanaysa. Ma adeegashada dukaamada waaweyn ayaad ku daashay? Xusuuso, dad baa qashinka ka dhex raadinaya alaabo. Moobilkaa jabay miyaa la murugootay? Xusuuso, in badan baa mugdi ku nool oo iftiin koronto xitaa weligooda arag. Ma noloshaa iska nacday? Bukaan badan oo ay ku xiran tahay oksijiinta neefta ayaa isbitaalada jiifa, wax kastana ku bixiya si ay u noolaadaan. Ma shaqo ayaad weyday? Mise shaqadii aad haysatay ayaad nacday? Malaayiin ayaa shaqeeya 12 saacadood si ay u helaan hal waqti wax ay cunaan. Ma dadaal kastoo aad samaysay, darajo kastoo aad heshay, ayaad haddana degnaan maskaxeed weyday? Nimcada Alle ku siiyay ayaadan ku shukrin? Alle subxaanahu wa tacaala ayaa kuugu yeeraya inaad u noqoto oo camalo wanaagsan aad samayso. Ma qof aad jecleed ayaad weyday oo aad la murugoonaysaa? Ogow, adduunkan inay ku nool yihiin dad badan. Weydiiso Allah subxaanahu wa tacaala bedel khayr qaba inuu ku siiyo. Ma kuwa madax noqday, maal iyo magac weyn yeeshay ayaad ka masiirsan tahay? Ma ogtahay intooda badan inaysan si nabad ah u seexan, suuqan aysan dhex mari karin si nabad ah? Haddaba ha ku lumin waqtigaaga tirinta dhibaatadaada. Yaysan kuu muuqan oo keliya waxyaabaha aadan haysan. Xusuuso oo ku mahadnaq nimcooyinka Allah subxaanahu wa tacaala uu kugu galaday.